محمد عدي وركان اسku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn Aladiin Murojerdi oo xubin ka tirsan golaha amniga qaranka ee wadanka Iran ayaa sheegay in Iran ay gacan ku haynta marinka Hormuz ay weligeed gacanta ku hayn doonto halka uu digniin u jeediyay madaxweynaha Mareykanka oo ku sheegay Iran weligeed in aynan deyn doonin madaxweynaha Mareykanka isagoo oo la hadlayay telefishinka tasmiin la yiraahdo ayaa Murojerdi waxa uu sheegay wadamada reer galbeedka waxa ay garwaaqsadeen waxa uu ku tilmaamay Iran awoodeeda iyo saameynteeda iyo in jamhuuriyadda islaamiga ah ay la soo baxday meedaankana la timid in awood ballaaran ay leedahay oo laga baqayo oo intaas ku daray wada xaajooyada ma noqon doonaan kuwa lagu gorgortamo iyo kuwa sharafta Iran meel looga dhaco wuxuuna ku nuuxnuuxsaday Iran in wada hadallada ay si toos ah ayaga oo amar ka haysata hogaamiyaha ruuxiga wadanka Iran Mujtaba Khamenei gashay halka afhayeenka baarlamaanka Maxamed Bageer Galibaf oo garwadeen ka ahaa wada hadalladaasi khibradiisa aadka u ballaaranna laga faa'iideystay ogayaha arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Pete Hegseth ayaa ku nuuxnuuxsaday dowladda Mareykanka inay guulo waaweyn ka soo hoyeysay dagaalka ay la gashay wadanka Iran saate wuxuu hoosta ka xariiqay in Iran ay weli u hanqaltaagayso samaynta iyo taageerinta barnaamijkeeda nukliyeerka saasde dowladda Mareykanka maamulkeeda il dhow ayay ku hayaan intii lagu guda jiray isagoo la hadlayay Congress-ka arrimaha Iran ka hadlayay Hegseth wuxuu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu mar hore dhiirigeliyay in la xaqiiqsado in Iran aynan weligeed hub nukliyeer yeelan Iran waxay ahayd in laga hortago lagana hor istaago inay samaysto hub nukliyeer wuxuuna intaas ku daray Iran weli waxay u hanqaltaagaysaa inay nukliyeer saysto wuxuuna carabka ku adkeeyay in si dhow 24 saacadood isha lagu hayn doono wadanka Iran saddex ilood oo ku dhow Hamas ayaa sheegay in ururka Hamas ay si carale ula hadleen dhexdhexaadiyaashii iyadoo Israa'iil ay sii wada xadgudubyada ka dhanka ah xabad joojintii weeraro joogtaana ka geysanaysa marinka Gaza waxaana ugu dambeeyay dilkii ay ku khaarijisay Iyad al-Shambari oo ah mas'uul sare oo ka tirsan ururka Hamas garabkiisa militariga ee Kataib al-Qassam saddexdaas ilood oo la hadlay wargeyska Sharqul Awsat ayaa sheegay Hamas inay u tixgelinayso xadgudubyadaasi gaar ahaan dilka mas'uuliyiinta xagga amniga in ay dharbaaxyo ku tahay dadaalka dhexdhexaadiyaasha oo looga gol leeyahay in lagu abuuro xabad joojin ku qasbaysa Israa'iil in ay fuliso balamadii ay qaabday wuxuuna ugu baaqay dhexdhexaadiyaasha inay si degdeg ah ku soo farageliyaan oo xoog leh oo dhab ah si loo joojiyo ayuu leeyahay xadgudubyada joogtada ah oo horseeda inay dhintaan in ka badan 1,000 Falastiiniyiin ilaa inta xabad joojinta la meel mariyay bishii Oktoobar sanadkii 2025 ilahaasi ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaashu ay xaqiijiyeen inay sii wada doonaan dadaaladooda ay cadaadiska ku saarayaan Israa'iil inay joojiso xadgudubyada wasaaradda caafimaadka ee wadanka Lubnaan ayaa sheegtay in 3 dumar oo reer Lubnaan la dilay 11 kalena la dhaawacay kadib markii Israa'iil ay duqeysay tuulada Tirdaba ee koonfurta degmada Teer ee koonfurta Lubnaan dagaalka Mareykanka ee ka dhanka Iran ayaa la sheegay inay ku baxday lacag gaaraysa $25 bilyan ilaa hadda sida uu mas'uul sare sheegayo oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga waana markii ugu horeysay si rasmi ah kharashka ku baxay dagaalka laga hadlo Julius Hersh oo ah ninka mas'uulka ka ah xisaabaadka kharashka ka baxay militariga ayaa u sheegay Congress-ka in guddiga u qaabilsan arrimaha militariga in lacagtaasi intooda badan ay ku baxday hubkii lala dhacay wadanka Iran
dowladda Mareykanka ayaa bilowday inay weeraro ka dhana Iiraan qaado iyada iyo Israa'iil bishii February ee sanadkan. Labada dhinac ayaa hadda waxaa ka dhex jirta baa leeyahay xabad joojin jilicsan iyadoo xabad joojinta uu madaxweynaha Mareykanka ku dhawaaqay. haddana waxaad moodaa hadafyadii Mareykanku u lahaa inaana midna laga gaarin oo ay ka mid tahay Iiraan inayna helin barnaamij nukliyeera in la burburiyo gantaalada nukliyeerka barnaamijka gantaalada nukliyeer barnaamijka gantaalada Iiraan ay haysato iyo in la abuuro xaalado Iiraan xukuumadeeda lagu afduubayo wax ka soo naasacadaada ma jiraan qorshayaashaas. wararka caalamka waxaa ka mid ah booliiska waddanka Britain ayaa gacanta ku dhigay nin kadib markii laba qof oo u dhashay Yahuud lagu tooreeyay ama midi lagula dhacay waqooyiga London sida laga soo xiganayo kooxo Yahuuda kadib markii ayaantan dambe ay socdeen in dab la surayay hantida ay leeyihiin dadka Yahuuda. waxaa macluumaadku intaas ku daraya labadan qof ee la tooreeyay ayaa lagu daaweynayaa isbitaal kadib markii gurmad degdeg ah ay qaadeen. xaaladan ka dhacday magaalada London ayaa waxay ka dhacday xaafadda Golders Green oo ay degan yihiin jaaliyad ballaaran oo Yahuud ah. waa tahay maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. mufakiriinta ay ka mid yihiin Ruushka iyo dalal kale kulligood waxay isku raacsan yihiin Mareykanka awoodii uu lahaa ee uu u amarku taagleyn jiray waddanka Iiraan inay meesha ka baxday. 40 maalmood ayaa waxa laalay wuxuu kari karo iyo wuxuu sameyn karo sameeyay. xabad joojinta ku dhawaaqayna waxaa lagu tilmaamay inay tahay baqacar maadaama uuna karti iyo awood u lahayn uu ku maquuniyo kuna rido xukuumadda waddanka Iiraan. Iiraan waxaa la yiri waa ka duwan tahay dalalka kale. waddan kale inta Iiraan ku dhacday hadday ku dhacdahay waddankaasi uu burbur lahaa waa lagu kala tegi lahaa. laakiin Iiraan wuu yaraysta Mareykanka muddo dheer ayay isdiyaarinaysay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dagaalkan uu hadda bilaabay hore ayay Iiraan u sheegtay ma aha mid asaga uu joojin karo. haddana ninkan hanjabaad furan ayuu u jeediyay madaxweynaha Mareykanka uu leeyahay weligii ka hari mayno. waxaana muuqata madaxweynaha Mareykanka qorigan uu sito iyo waxaan uu soo bandhigayo waa buuro xofteen waxay Soomaalida ku tiraahdo. ciidankiisa wixii ay qaban waayeen ma qaban karo. waxaana muuqata sida ay u dhigayaan mas'uuliyiinta waddanka Iiraan hore ayaa loogu hungoobay heshiisyo iyo wada hadallo. Iiraan iyo Mareykanka waxay ku kala harayaan meedaanka dagaalka. Iiraan waxay ogaatay dowlad awood weyn ay tahay caalamka intiisa kalena waa tustay. Mareykanka ayaa laga rabaa marka in oo Iiraan si cad oo la fariisto oo wada hadal uu la galo ama oo sida ay qabiirada hadal ku dhigayaan oo meesha ka holeelo sababtoo ah dagaalka cidda xabad joojinta dalbanaysa ee dagaalka ka cararaysa waa Mareykanka. waxaana la isku raacsan yahay dagaalka Iiraan lagu qaaday inuu khalad ahaa. madaxweynaha Mareykankana dhanka Iiraan iyo waddanka Mareykanka gudihiisa iyo wadamada xulafada la ahaan jiray Mareykanka ama NATO ama Europe kulli waxaa loo arkaa in sida uu hadlayo iyo sida uu dhaqmayo ayna ahayn waxa lagu yaqaano nin mas'uula oo dawlad weyn garwadaan ah. waa garta waaya aynu dhinaca kale ka eegno arrinka Hormuz waa doodda ugu weyn ee ka taagan. Iiraan maanta wariyaal bay waday waxay geysay marinka Hormuz weli wariyaal ajnabi ah u badnaa oo kaalada warar iyo warbaahinno caalami ah ka socday kuwa gudaha. hadalkan hadda waxaan ka maqlaynaa Alaadiin inuu leeyahay weligan ayaanu gacanta ku haynaynaa. marka doodda ugu adag hadda la isku hayaa ma arrinka Hormuz ba. dowladda Iiraan si cad ayay u sheegtay Hormuz dhulkeeda ayuu ka mid yahay. Mareykankana lagama tashanayo haddii uu rabo in uu dagaal u yimaado meeshaasna wuu imaan karaa. hore ayay u sheegeen maraakiibta Mareykanka yiri waxaan go'doominaynaa dekedaha waddanka Iiraan. Hormuz iyo agaarkiisa ma joogaan. markii ay markab isku dayeen duqeeyeen Iiraan waa fal celisay
idaacadaha reer galbeedka oo dhan iyo adduunku waa ka aamuseen. iiraan hore ayay waxay u geysay suxufiyiin maxalli ah oo iiraan ah, haddana suxufiyiin ajnabi ayay geysay. waxa ay tusaysaa Maraykanka warka uu sheegayo inuu yahay propaganda oo goobta dagaalka aynan ahayn Hormuuz iyo meel u dhow. maraakiibtii shixnadaha ee geli lahaa marinka Hormuuz ee bariga dhexe ka bixi lahaa waa dhooban yihiin. wadamada aanan gacan saar kala lahayn colaadda wadanka Iiraan waa loo ogol yahay inay maraan, waxay bixinayaan khidmad, laakiin waxaa la hortaagan yahay maraakiibta wadamada gacanka la leh oo ay ku jiraan wadamada gacanka maraakiibtooda. sababaha keenaysana waxa weeye wadanka istaga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain iyo Kuwait, marka laga reebo Ciraaq maraakiibteeda intaasoo dhan Maraykanku Iiraan waa hortaagan yihiin. wadamadana noloshooda waxay ku xiran tahay waxyaabaha ay dibadda ka iibsadaan. Saudi Arabia maxaa looga reebay? Saudi Arabia bad kale ayay badda cas ku leedahay, dekedo waaweyn ayay leedahay, mid shidaalka laga raro iyo mid shixnadaha caalamiga ay ka degaan iyo kuwa kale. hase ahaatee dagaalkani meeshuu amni gobolka bariga dhexe u keeni lahaa wadamadii carabta ayaa qaati taagan. cid walba ayaa rabta dagaalkani inuu dhammaado. Maraykanku qodobadii uu la ordayey waa socon la'yihiin. Pakistan hadda waa quusatay, waxay aragtay mowqifka Iiraan inuu isbedelaynin, Maraykankana gorgortankiisa inuu yahay mid raqiis ah oo khiyaano ay ku jirto. waxaad moodaa arrintii hadda inay isla nuxuustay, Maraykankana uu naf ka dhiganayo xabajoojintan. dagaalkanna waxaa laga yaabaa inuu dib u bilowdo sida khabiirada inay isku raacsan yihiin, laakiin Maraykanka waxa ka hortaagan waxaa weeye hub iyo rasaas ku filan ma haysto. waxaa la dardargelinayaa sidii hub loo samayn lahaa, oo xataa barnaamij gaar ayaan ka samaynay Israa'iil oo Maraykanka uu gargaar hub siin jiray iyo diyaarado casri ah. heshiis waxaa lala gelayaa ah in ay wadajir kharash ugu bixiyaan wax soo saarka xagga militariga iyo teknolojiyada casriga si looga hortago diyaaradaha droniska ah iyo gantaaladan guuxooda ka dheeraya. agabka militariga ay Iiraan haysato waa agabka ugu khatarsan qarnigan 21aad. waxaa jira nin muxallilo weyn oo arrimaha dagaalka la furguro, waxa uu yidhi 2 dal oo nuclear ah oo awoodooda weyn tahay ayaa isu kaashaday 40 maalmood inay Iiraan maquuniyaan. haddii ay maquunin waayeen waxaa soo baxday oonan asxaan ahayn Iiraan inay noqotay quwad weyn oo adduunka kusoo biirtay. qaabkii hore isbedel weyn ayaa ku yimid. Ruushka iyo Shiinaha laftirkooda ma aynan istijaabin oo Maraykanka dagaal lama gelin, laakiin Iiraan dagaal cad oo 40 maalmood socday oo Maraykanka kartidiisa ay wax walba uu sameeyey ayaa dhacay. la duqeeyey, la burburiyey xirihiisa militariga, oo xataa ay ku jirto duulimaad xagga cirka ah oo diyaarado duq ah oo Iiraan laga gatay Kuwait saldhigyo militari ku yaala oo Maraykanku leeyahay lagu duqeeyey diyaaradda F4 la yiraahdo. waxay noqotay waxyaabaha lala yaabo kadib markii raadaradii iyo isgaarsiintii Maraykanka ay ka dhuntay ama laga burburiyey. waxay tahaba Maraykanka wuxuu arkaa Iiraan in ay noqotay laf dhuunta ugu jirta. waa gartay arrinta dhaqaalaha aynu ka hadalno. Trump wuxuu weydiisanaya Kongareeska lacag dheeraad ah 1.5 bilyan, laakiin waxaa leeyahay mar hore 25 bilyan baa ku baxday. sidee arrintan u saameynaysaa doorashada waqtiga dhexe ee November lagu wado in la qabto? Maraykanka ma aha kaliya inuu hub badan ka khasaaray oo uu ku duqeeyey Iiraan, hadafkii siyaasadeed oo lahaa oo dhan waa hirgeli waayeen. ha noqoto xukuumadda ridadeeda, ha noqoto in Iiraan lagu qasbo inay qaadato qodobada uu Maraykanka soo jeediyey. bedelkeedii Maraykanka waxaa hor yaalla qodobo aan tanaasul laga sameynin. arrinta kale oo soo tartay ayaa waxay tahay Maraykanka agab muhiim ah oo military ayuu ka soo guray Asia oo uu Shiinaha ku hortaagnaa. waxaa muuqata lacagtan baxday lagu leeyahay 25 bilyan waa hubkii kayd ku ahaa Maraykanka. hubkaasi 40 maalmood ayuu 25 bilyan oo dollar khasaaray. waxaana muuqata waa hordhac weeye waxaan la sheegayo. Maraykanka hadduu dagaalka ku noqdo khasaaraha intan waa kasii badanaya. waxyaabaha kale oo cajiibka waxaa ka mid ah oo aanan la qiimeynin burburkii ay Iiraan geysatay
hubkii ka khasaaray maraykanku baa laga hadlay hubkii ay burburkii ay Iiraan ka geysatay saldhigyadii militariga ee bariga dhexe ku yaalay qiimeyn weli lama samayn qaarkood 30 sano in ka badan ayaa laga shaqeynayay waxaa ku jiray meelo satellite laga hago waxaa ku jiray raadaaro casri ah waxaa ku jiray xarumihii sirdoonka waxaa ku jiray saldhigyo waaweyn oo military oo casri ah waxay tahaba maraykanka khasaaraha gaaray 25 bilyan waa ka badan yahay sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan laakiin ninkani waxa uu ka hadlay hubkii kaydka ahaa ee qiimihiisa la ogsoonaa waxaan kale waxay u baahan yihiin inay qiimeeyaan dad taga goobaha khasaaraha soo ogaada waxaa intaa dheer maraykanka sumcadiisa iyo sharaftiisa ayaa hoos u dhacday madaxweynahan maraykanka hadda ka taliya ma aha khasaaro u geystay maraykanka inay dagaalka ku guuldareystaan waxaa u lumiyey taageeradii caalamka intiisa kale u ka heli lahaa siyaasad ahaan waa go'doon tan kale oo ayadan soo taraysa ayaa waxay tahay maankiisa iyo miirkiisa ayaa laga dhigay kuwo aanan u qalmin nin mas-uul sare ka ah waddan aada u weyn tan kale oo ayadana soo muuqatay ayaa waxay tahay 47 sano ay Iiraan il cunaysay oo ay isdiyaarinaysay miraheeda hadda faraha ku haysaa waxa ayna leedahay tanaasul aan u sameynayna maraykanka lama arko wax walba oo maraykanka waxay ku dhamaan doonaan meedaanka dagaalka ninka ka cararaya sida hadalka loo dhigayo waa maraykanka وهاجد محمد آد بدو mahadsantahay daawadayaashuna iyo mahadsanyihiinta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir